dagaal u dhaxeeya ururka al-shabaab iyo ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa habeenkii xalay waxa uu ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana dagaalkaasi ka soo baxay warar kala duwan waxa warar dheeraad ay ka soo baxayaan dagaal al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka Siinka Dheer ee duleedka magaalada Muqdisho al-shabaab ayaa tiro 2 jeer weerar ku qaaday fiidnimadii xalay fariisin ciidamada NISA ay ku leeyihiin deegaanka Siinka Dheer dad goobjoogayaal ayaa xaqiijiyay in dagaalka uu qaatay waqti badan isla markaana labada dhinac isku adeegsanayeen hubka xilligaas ay haysteen al-shabaab iyo dawladda Soomaaliya oo wali aan faahfaahin dheeraad ah ka bixin dagaalka dhacay balse dadka deegaanka ayaa dhinaca kale xaqiijiyay in dagaalka uu sababay dhaawac 3 qofood oo dad barakacayaal ah isla markaana ka agdhawaa deegaanka Siinka Dheer ee dagaalku ka dhacay waxa jira sidoo kale khasaare soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay iyadoona xaaladu imika ay degan tahay waxaana ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa Siinka Dheer fariisinka ku leh NISA waxay saaka sameeyeen howlgal ay ku baadigoobayaan shakhsiyaadka ka tirsanaa al-shabaab ee weerarka ku qaaday fariisinka ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka Siinka Dheer ee duleedka magaalada Muqdisho Sharmaake Maxamuud Xuseen Kalsan TV Muqdisho